come on, sit down, have a seat, please. Somalia. Somalia. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أوهايو من نبض هويكم من نبض من نبض هريالكي دلجعيلكم من نبض هرمودكي سمفلكم من نبض قدومياشا جاليدها الصوماليات ugu horeeyo gudoomiyaha jaaliyadda guud ee Soomaaliyeed samigay xasan odayaasha dhaqanka culimada ganacsatada aqoon-yahanada indhaargaradka fanaaniinta sharafta leh ee bahda suugaanta ee halkan nala fadhida haweenka Soomaaliyeed ee sharafta iyo qiimaha badan dhalinyarada Soomaaliyeed ee mustaqbalka ah بعد الصحافة مرت شرفتا يدمان ضد الصوماليات كان لقى دعوانا عمال والله مركورة وحن الله هاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انت نداوري ساي وحن لك السلام يا بقالدي شرفت بنيت ضد الصوماليات وشرفت بدني جوجان وهايا سلام كتب وحان الرهاية وقام هذا علينا يا سيدة حرمتنا إيوه وده جيركا يا ديكو سور دويسين لغالدينا سيجار وحانوك مهد لغايا ملاحظة إيا داليرادة في الفرعون يا قرركا Somali American political action team سابق ونص قليلي نونسو أقاسمي حفلة آتكو وقروح دبلا وحاي فرحات جلسي وانا بكوبو قادين يا سيدادو جعشيهين قلبيتي نقول حريهين دالكا نويو وقوقال لقوتيين حالة دالكا فهم يا أركتي عدنا أتكاي ستان دولة ديسك صوماليا كالين لحادنا وقادتان سمفلكا يدد هذا القصة مطبحنا يو تتكينا تبالي سن وعن رير أهاي وقدير صدي وانا بكوة هم بلينا يا سيدا هاد نرول يا فرصة وأبورتين قبل كان اتسامين يا ميسان غلوس وقود أحلاديين كان هايو يقود أهان دلك مرايكين إن النور معنا له هي مستقبل إفيا كده عبورتان دل آدم كودلان واتسود قلوتي كتيين وحي وحبا كشيء إسا كرتدينا إيهول كرنمدين وحي سيدو كالستور الصح أحنا قسينا إسا سيدا يوحد الديستي دولة لماذا دلكا ويهيدوه هذا إيو شروع دودو دولة دني أيو هرسادي إنay noqoto dalka ugu fursadaha badan dunida uguna dhaqaalaha badan caalamka waa tusaale cad oo ina tusaya sida ay dadka Soomaaliyeed u indhafuran yihiin u dadaal badan yihiin uga gudbi karaan caqabadaha ku hor gudban ugana miro dhali karaan fursadaha horyaala intii aan joogay Mareykanka waxaan ku galay nolosha dadka Soomaaliyeed ee dalkan ku dhaqan waxaan xaqiiqsaday aragti aan horay u qabay horayna u aaminsanaa oo ahayd in dadka Soomaaliyeed ay leeyihiin karti firfircooni iyo hal-abuur ay uga dhex muuqan karaan bulshooyinka caalamka haddii
haddii ay helaan nidaam dowladeed oo u suurtogeliya inay rumeeyaan riyooyinkooda. sidaad la socotaan walaalayaal 34 sano kadib burburkii dowladnimada Soomaaliya iyo muddo rubac qarni ah oo laga joogo yaglalkii jamhuuriyaddii saddexaad ee Soomaaliya, dalkeenu wuxuu weli ku jiraa xaalad cakiran oo midnimada ummadeennu dhaawacan tahay. dalkuna baylaha u yahay damac shisheeye oo ay tusaale nool u tahay duulaanka qaawan ee Itoobiya ku soo qaaday badda Soomaaliya. rubac qarni kadib yaglalkii jamhuuriyaddii saddexaad ee Soomaaliya, dowladnimadeenna waxaan aaminsanahay inay naafaysay oo ay la hana qaadi la'dahay dhaqan siyaasadeed gaamuray oo caqabad ku ah dhisidda iyo tayeynta hay-adaha dowliga, doorashada dadka qaranka, aqoonta iyo ammaanada leh, sugidda amniga qaranka, kobcinta dhaqaalaha dalka, xaqiijinta saraynta sharciga iyo la dagaalanka qabyaaladda iyo musuqmaasuqa. dhaqankaas ayaa horseeday inay dadkeenu ka daalaan tiiha aan ku jirno. dhalinyaro Soomaaliyeed oo waxgal ah oo ka quustay dowladnimada dalkana ay u tahriibaan Yurub, Canada iyo Amerika, halka kumanaan qoysas badanna ay ku sii qulqulayaan Kenya, Masar iyo Turkiga, iyagoo baadi goobaya nolol ku dhaanta tan ka taagan dalkooda hooyo. waxaa xusid mudan 30 sano ka hor dalka Rwanda wuxuu ahaa waddan faqri ah, ku jira dagaallo sokeeye, waxayna 100 maalmood gudahood dagaal qabiil isaga dileen dad ku dhow 1 milyan oo qof. 30 sano kadib Rwanda waxay kaalimaha hore uga jirtaa dalalka ugu nabdoon uguna horumarsan Afrika, duniduna ay ku tartanto inay maalgashi la aado. sidaad la socotaan, mar walba oo dalkan Maraykanku doorasho gelayo sida hadda doorasho ugu jirtaan, horumarinta dhaqaaluhu wuxuu kaalmaha hore uga jiraa arrimaha mudnaanta leh ee lagu tartamo. madaxdana waxaa lagu kala doortaa aragtidooda siyaasadeed iyo sida ay wax uga qaban karaan arrimaha dhaqaalaha ee ay ka mid yihiin sicir bararka, shaqo abuurka, mushaaraadka, canshuuraha, guriyeynta. waayo dhaqaaluhu wuxuu gundhi ku yahay nolosha dalka iyo horumarka dadka dal walba ku dhaqan. haddaba meeshan quruxda badan aad joogtaan, haddii aan u barbar dhigno dalkeeni Soomaaliya, wax soo saarka dhaqaale ee maanta aan taaganahay ee GDP per capita waa $775 oo keliya, taasoo ka yar kala barka celceliska dalalka sub-Saharan Africa oo ah $1580. dalka iyo dowladdeennuna waxay wajahaysaa caqabado ba'an oo maaliyadeed. dakhliga gudaha waxa uu 3% keliya ka yahay GDP-ga guud ee dalka, halka dakhliga canshuurahana uu GDP-geena ka yahay keliya 2.1%, taasoo aad uga hooseysa celceliska Afrika oo ah 16%. haddii aan dhinaca kale ka istaagno, Soomaaliya waxay 5 jeer ka weyn tahay gobolkan hadda aan idinla joogo ee Ohio, halka GDP-ga Ohio uu 102 jeer ka badan yahay GDP-ga dalkaas weyn ee Soomaaliya. dunida horumartay waxay mashaariic maalgashi oo ganacsi ka fulisaa dalalka soo koraya oo dhan si ay u xaqiijiyaan isku filnaansho dhaqaale.
tusaale kale haddii aan soo qaadano 2010 ilaa 2023 sagaal ka mid ah hay-adaha ka shaqeeya maaliyadda horumarinta dhaqaalaha ayaa 2718 mashruuc oo maalgashi ganacsi ka hirgeliyey qaaradda Afrika. muddadaas maalgelintan 71.8 bilyan oo dollar ayaa loo qoondeeyey dalalka sub-Saharan Africa. Koonfur Afrika, Nigeria iyo Kenya ayaa maalgelintaas ka helay ku dhowaad 50% maadaama ay heleen 47%. sababtoo ah waxay u diyaarsan yihiin ka faa'iidaysiga fursadaha maalgashi oo ay fuliyaan hay-adaha maaliyadda caalamiga ah ee bangiga adduunka IFC, bangiga horumarinta Afrika, hay-adda horumarinta maaliyadda ee Maraykanka, tan Ingiriiska, tan Jarmalka, tan Netherland, tan Norway, tan Finland iyo tan Faransiiska. waa hay-ado maalgashada Afrika si ay uga ganacsadaan. si lagula ganacsado waa inaad diyaar u tahay in lagula ganacsan karo. dhaqaalahaas 72 bilyan ka badan ee 13 sano ee la soo dhaafay la geliyay Afrikada Saxaraha ka hooseysa ee sub-Saharan Africa waxaa lagu maalgeliyey kaabayaasha dhaqaale ee dalalkaas ugu muhiimsan. muddadaas 13 sano Soomaaliya waxaa dhaqaalahaas uga soo aaday 10 milyan oo dollar oo keliya oo maalgelintaas ka ah eber 14%. waxay aad uga hooseysaa maalgashiga ay heleen wadamada bariga Afrika. Kenya keliya waxaa lagu maalgeliyey ku dhowaad 7 bilyan oo dollar. Ethiopia waxaa lagu maalgeliyey ku dhowaad 2 bilyan oo dollar maadaama lagu maalgeliyey 1.7 bilyan dollar. Uganda waxaa lagu maalgeliyey in ku dhow 1.4 bilyan dollar. waxaa xusid mudan in hay-adahaasi ay mar walba diyaar u yihiin inay Afrika ka ganacsadaan. hay-adda bangiga adduunka iska leedahay ee la yidhaahdo IFC-da keligeed ayaa 2024 waa hal sano keliya rabtaa inay ku maalgashato wadamadaas aan idiin sheegay 10 bilyan oo dollar. waxaa nasiib darro ah in Soomaaliya oo ah dal khayraadkiisu dahay oo leh khayraad dabiici ah aanan ka faa'iidaysan karin fursadan dabiiciga ah. waxaana laga rabaa haddaba haddii aan Soomaali nahay inaan isweydiino waa maxay sababta aan uga faa'iidaysan lahayn. maxaa naga hor taagan inaan ka faa'iidaysano wax soo saarka dalkeenna, kordhino ganacsigeenna, duniduna ay noo timaado si ay noola ganacsato. waxaa la yidhi ciyaaya ayaa loo ciidamayaa. waxaa maalgashigaas ama maalgelinadaas xooggan naga hor taagan amnigeenna oo aan weli laisku halayn karin, siyaasadda dalka oo aan xasilnayn, hay-adaheena dawliga ah oo aan sal adag ku fadhin, garsoorka dalka oo aan madax bannaanayn, shuruucdii dhowri lahayd maalgashiga oo aan jirin, iyo musuqmaasuq baahsan oo curyaamiyey dowladnimada. rubac qarni kadib yagleebkii jamhuuriyaddii saddexaad ee Soomaaliya waxaan aaminsanahay haddii aan Soomaali nahay inaan ku khasbannahay inaan bedelno habdhaqanka siyaasadeed si aan wax uga bedelno nolosha dadkeena. dalkii faqri ahna waxba kama bedeli karo nolosha dadkiisa iyo tan dalka oo dhan. sidaas daraaddeed waxaan aaminsanahay haddii ay Soomaali ka go'an tahay inaan horumarino dhaqaalaheena waxaan ku khasbannahay inaan dalka ka hirgelino siyaasad xasiloon, dhaqan gelinaa dimuqraadiyad iyo siyaasad loo leeyahay, fursad siinaa isfahamka iyo wadahadalka, siduu wadajir ahna uga shaqaynaa ciribtirka khawaarijta baabiisay ummadda Soomaaliya.
haddii ay naga go-an tahay inaan horumarino dhaqaalaheenna waa inaan tayeynaa hay-adaheenna dhaqaalaha si aan dunida ula macaamili karno waa inaan dhisno hay-ado u shaqeeya ummadda Soomaaliyeed si aan u helno hay-adahaas waa inaan xornaa dadka Soomaaliyeed ee ugu kartida aqoonta iyo ammaanada badan bulshada wiilal iyo gabdhaba hirgelinaa garsoor madax bannaan xaqiijinaa sharciga sharciga dhaqan gelinaa shuruuc dhiirigelinaysa in dunidu noo timaado ee maal gasho dhammaanad qaadnaa ilaalinta hantida iyo xuquuqda lahaanshiyaha sidoo kalena fududaynaa xallinta khilaafaadka ka iman kara maalgashiga dunida nooga imaanaya haddii ay naga go-an tahay inaan horumarino dhaqaalaha dalkeena si aan bulshadeenna ugu tarno waa inaan si wada jir ah ugu istaagnaa la dagaalanka iyo dabarjarka musuqmaasuqa hay-adaheena dowliga hay-ad walba oo dowladdu leedahana ka dhaqangelinaa daafurnaan iyo isla xisaabtan dhaba haddii ay naga go-an tahay inaan horumarino dhaqaalaheenna waa inaan ahmiyad siinaa dhisidda kaabayaasha dhaqaalaha dalka ka shaqaynaa shaqo abuurka dhalinyarada Soomaaliyeed iyo kobcinta ganacsiyada yaryar taageernaa iskaashiga ganacsatada iyo dowladda ganacsatada dalka iyo dunidana ku dhiirigelinaa inay maalgashadaan kaabayaasha dhaqaalaha dalka sida tamarta warshadaha iyo wax soo saarka beeraha xoolaha iyo kalluumaysiga si daah furan ammaanana ku jirto uga shaqaynaa kamiro dhalinta kheyraadka dabiiciga ah ee ummadda Soomaaliyeed ay wada leedahay markii ay burburtay dowladnimadii Soomaaliyeed waxaan ku baxsannay oo samata bixiyey dalkeenna iyo dadkeenna kaalin hogaamineedna ka qaatay ganacsatada Soomaaliyeed oo hirgeliyey ganacsi kalsooni iyo is-aaminaad ku dhisan waxayna kartidooda iyo howlkarnimadooda uga soo gudbeen caqabada tiro badan caqabadahaas tirada badan oo 30 sano ay na soo dhaafiyeen waxayna keeneen maanta meel aan dunida la macaamilin dunida casriga oo Maraykanku uu ka mid yahay mashiinka dhaqaajiya kordhinta dhaqaalaha waa ganacsato heshay dowlad fahamsan duruuftooda taageerta halabuurkooda una fududaysa inay si fudud u ganacsadaan waa inaan dhiirigelinaa oo garab iyo gaashaan u noqonnaa ganacsiyada Soomaaliyeed xoojinaa kalsoonida ay dunidu ku qabto ganacsatadeenna isuna furnaa ganacsatada Soomaaliyeed iyo hay-adaha maaliyadda adduunka taas macnaheedu waxay tahay marka ay ganacsatada Soomaaliyeed guulaysato waxaa kobcaya dhaqaalaha dalka waxaa yaraanaya fakriga iyo sicir bararka waxaana kordhaya shaqo abuurka dowladda Soomaaliyeedna waxay helaysaa canshuur shacabka loogu adeegi karo haddii si hufan oo ammaano leh loo maareeyo dadka Soomaaliyeed meel walba oo aan joogno waxaan wada tirsannahay in tiihu nagu daba dheeraaday waxaana dhibbanayaal kulligeen u wada nahay xaaladda cakilan ee maanta dalkeenu ku jiro waa aragnay in jidkii aan ku soo xiiqnay welina ku joogno aan lagu gaarayn dowladnimo taaba